saaxiibayaal soo dhawaada dhammaantiin ku soo dhawaada Dhigaal Academy iyo cashirkeennii aan ku baranaynay naqshadaha dhammaystiran iyo qiimaha qabyada ah naqshadaha qabyada ah iyo qiimaha dhammaystiran iyo naqshad dhammaystiran iyo qiimo dhammaystiran oo ah marka in aad ka ganacsato mar walibana aad isha ku hayso maxaan kala jeednaa maxayse tahay waxa aan marka halkaan ka fiirinayno waxay noqonaysaa naqshad dhammaystiran iyo qiimo qabyo ah tan oo ka dhigan marka in si taxadiran trade-kan aad u qaadato qaabka marka trade-kan uu kugu imaanaya ayaa waxay tahay double top-kaaga baatanka halkaan aad ku haysato waxaad arkaysaa in uu yahay naqshad baatankan wuxuu isku dhammaystiray double top-ka ah si corrective-kan uu isku dhammaystiray waa qiimo marka qabyo ah oo aanan is dhammaystirin maadaama loo tagay double top-kaaga qaab corrective ah ama marka qaab correction ah tan waxay nagu qasbaysaa marka in aan confirmation dheeri ah suuqii ka sugno taa oo ka dhigan in qiimuhu mar saddexaad uu soo taaban karo oo treatage halka uu noogu soo samayn karo inta aanan soo seel garaynin kor ama in aan sugno impulsive-ka koowaad kadibna aan falaageena ama correction-keenaas aan ka qaadano entry-ga tan oo ka dhigan in aan ka ganacsano laakiin ay tahay in aan uga ganacsano si taxadiran naqshadu marka ay dhammaystiran tahay oo qiimuhu qabyo yahay kaliya waxaan sugaynaa in qiimaha uu is dhammaystiro haddii ay lugta saddexaad ay u dhiman tahana in uu dhammaystirto lugtiisa saddexaad haddii kalena in aan helno confirmation area taa waa in aan sugno impulsive-ka koowaad oo aan qaadano marka entry-geena correction-ka in aan ka qaadano halkan waxaan haysanaa naqshad dhammaystiran iyo qiimo dhammaystiran taa oo ka dhigan double top-keena in aan soo dhammaystirnay oo aan u soo dhammaystirnay structure ahaan in aan u soo dhammaystirnay oo aan helno 1 iyo 2 iyo 3 saddexdeena taabasho marka halkaas aan ka helno taa waxay ka dhigan tahay naqshadeennii baatanka ahaa in uu is dhammaystiray qiimihiina marka in uu dhammaystiran yahay mar walibana in ay tahay inaan indhaheena ku hayno trade-kan in aan ka ganacsano oo aan risk entry-ga marka halkaa in aan ka qaadano ama in aan sugno impulsive-ka koowaad kadibna falaagan in aan qaadano oo aan ka ganacsano saddexdaas weji ayuu kugu imaanayaa price-ku waxaan isla tegaynaa chartiska iyo sida aan markaa suuqa ugu heli lahayn waxaan halkan ku baranaynaa cashirka valid trade-ka oo aan rajaynayo runtii in uu wax badan ka caawin doono waa muhiim markaad suuqan ka ganacsanayso in aad isweydiiso lacagta aad ka ganacsanayso qaab dhismeedka suuqa uu ku sugan yahay meesha aad joogto top of the structure iyo low of the structure in aad joogto middle of the structure sidaas darteed waxaa muhiim ah in aad fahanto saddexdan qaab ee uu ku yimaado valid structure-ka ama valid trade-ka valid trade-ku wuxuu ku yimaadaa in uu noqdo valid structure laakiin uusan noqonin valid trade waxaa kale oo uu ku yimaadaa valid structure qaab dhismeedka uu saxan yahay suuqu balse ma aha adiga in aad markaas ka ganacsato ee waxaad u baahan tahay in aad ka joogto waxaa kaloo jiro valid structure valid trade oo ah in qaab dhismeedka suuqi markaas uu is dhammaystiro uu saxan yahay ka ganacsigiisana uu saxan yahay oo ah in markaas oo kale aad isha ku hayso oo aad ka ganacsan karto waxa kale oo jiro valid structure oo high probability ka dhigayo in aan ihtimaam ka siino lacagtaas in aan qaadano oo markaas jihada selka ah ama buyga ah oo ay u socoto in aan u qaadano taana waxaa jiro tusaalayaal iyo confirmationno lagu ogaado xilliyada aad ka joogayso xilliyada aad gelayso lacagta oo aad ka ganacsanayso waxa uu yahay in qiimahani aad ka ganacsan karto uu waqtigii saxda ahaa ee aad ka ganacsan lahayd in la gaaray in aad u baahan tahay in aad sugto ilaa iyo uu kuu imaanayo qaab dhismeed saxan kuu noqonayo iyo in uu joogo meeshii ugu wanaagsanayd ee aad ka qaadan lahayd marka saddexdaas ayaan u kala qaadaynaa waxaan rajaynayaa in aad fahantay waxa uu yahay marka valid structure-ka laakiin aanan ahayn trade aad markaa ka ganacsan karto muxuu yahay waa valid structure waa qiimo
sax ah oo laakiin aanan dhammaystirmin in aad ka ganacsatana aanan ahayn ee u baahan in aad sugto. waa valid structure but not valid trade. laakiin ma aha markaa ganacsi in aad u gasho suuqii oo aad tradeka ku trade garaysa ma aha. in aad ka ganacsato qiimaha ma aha, laakiin waa valid structure. haddaba maxay sidaas ku imaanaysaa? waxay ku imaanaysaa meeshaan haddeertaan aan haysanno oo aad aragto waa USD SAR. USD SAR qaab dhismeedkan hadda ay samaynayso, meeshaan waa double top oo 1-2. waxaad sugaysay in uu halkaa ku yimaado ee uu suuqii markaas halkaan aad ka soo seel garayso. haddii aan jarno qiimaha oo aan halkaan oo kale soo dhigno, waxaan arkaynaa in wax yar ay u dhiman yihiin meeshii aan annagu ku sugaynay ama aad diiradda ay kuu saarnayd forecastingkaaga, ilaa iyo in uu kuu yimaado kadibna aad halkaas ka soo seel garayso. balse meeshaan waa maxay? sidee ayaan suuqan oo kale ula dhaqmayaa markii aan arko? xaaladee ayaana ku miisaamayaa in uu markaa ku sugan yahay? meeshaan haddii uu soo dhammaystiro suuqa qaab noocan oo kaleeta ah kugu soo dhammaystiro ee uu corrective ahaanta kugu tago halkaa, kadibna ay noqoto 80%gan in uu corrective yahay, keliya aad helaysid one impulsive-kaas, meeshaan uu ka bilowday xataa waxaad arkaysaa in uusan ba impulsive lahayn. sidaas darteed halka impulsive ee ku dhex jiro markaa qiimaha in uu ku cabsi geliyo oo aad dhahdo ama sii jabsadaa suuqii, taa waxay ka dhigan tahay in aad cabsi darteed suuqii uga harto. sidaas darteed markaad aragto in aad haysato double top lugta labaad si corrective ah u tagay, markaa qiimahaas wuxuu noqonayaa valid structure, valid trade, oo ah qiimo markaas in aad ku trade garayso ay saxan tahay, oo ah in aad isha ku hayso. laakiin marka uu sidan yahay ee uusan gaarin priceka meeshii loogu talagalay ee double topka ahayd, sida hadda aan ka arki doono in qiimuhu halkan uu ka soo daato qaab noocan oo kaleeta, halkan uu sel ku soo aado, meeshan ma aha meel aad ka ganacsanayso. waa sax, waa valid structure, laakiin ma aha meel aad ka ganacsanayso adiga. taa ayaa la yidhaahdaa not valid trade, oo ah qiime in aad ka ganacsato markaa kugu habboon adiga capitalkaaga ma aha, ee waxaad u baahan tahay in aad sugto confirmation dheeri ah oo qiimihii markaas aad ka joogto suuqa oo aadan ku degdegin. si markaas halkan haddii uu shaqeeyo, mararka qaar wuu shaqeeyaa sida halkan aan ka arki doono, oo 10%, 20%, 15%, tradeka noocan oo kaleeta ee ah valid structureka not valid tradeka wuu shaqeeyaa oo aanan tegin soo buuxinin meeshaadii double topka ahayd ama trade lanekaaga wuu shaqeeyaa mararka qaar. sida aan halkan tusaalahan cad oo aan halkan usoo qaataya waxay tahay markan oo kale wuu kuu shaqaynayaa, balse 90% capitalkaaga ayuu burburinayaa. sababtoo ah meeshan markaad aragtin qaab noocan oo kaleeta wuu shaqeeyey, mar waliba sidaan ayaad ku trade garaynaysaa. waxayna ka dhigan tahay taa in aadan weli fahmin valid trade not valid structureka iyo valid structureka oo valid tradeka ah. waxaan nidhi haddii uu halkan tago qiimuhu uu meeshan double topka ah soo taabto, taa waxay ka dhigan tahay in aad haysato qiimo saxan oo aad uga ganacsan karto si sax ah. waa valid structureka oo valid trade ayuu noqonaya. laakiin haddii ay noqoto in uu meeshan kasoo laabto priceka isagoonan soo buuxinin double topkaaga, taa waxay noqonaysaa qiimihii in uu yahay valid structure. waa sax, waa qiimo oo markaa patternkan ayaa wuxuu noqonayaa markaas valid. patternku valid wuu noqon karaa haddii uu yahay ascending iyo haddii uu yahay wedge oo kale, valid wuu noqon karaa, balse ma aha valid trade ma aha, oo ah qiime aad ka ganacsanayso markaa, oo mar waliba aad ka ganacsanayso markaad suuqa ku aragto ma aha, ee waa mid shaqeeyo 10% ama 15%, mararka qaar shaqeeyo, balse 90% ama 80% waxaan ka hadlayno ayaa waxay tahay in suuqu uusan shaqaynin markan oo kale. waxaan ku tusayaa tusaalayaal kale oo cadcad oo uusan shaqaynaynin tradekaas, laakiin adiga uu ku hadlayo, uu capitalkaaga burburinayo, markan oo kalena ay tahay in aad ka joogto. balse halkan maxaa ka dhacay? waxaan arkaynaa qiimihii in uu dhacay ee uu hoos soo aaday. yes, wuu shaqeeyey markan oo qiimihii halkan double bottomkan oo kale ayuu soo dhamaystiray, kadibna wuu kugu laabtay.
marka faa'iidada muhiimadeeda waxay tahay anagu halkan oo kale double topka markaan helno pilot structure-ka pilot trade-ka in aan qiimihii marka si wanaagsan uu soo daato oo ay noqoto qiimo aan anagu long term waqti dheer aan haysan karno oo aysan noqonin qiimo isla markiiba nagu soo laabto in uusan noqonin marka halkan waxaan ka arkaynaa pilot structure in uu yahay laakiin uusan ahayn pilot trade uusan ahayn marka meeshan haddii aad aragto qaab noocan oo kaleeta ma qaadan kartaa haddana trade-kii oo sidee anigu markaa trade-ka ku qaataa oo aan ku aaminaa in uu yahay trade ii shaqaynaya in uu yahay meeshan qaab noocan oo kaleeta markuu u dhaqmo trade-ka oo aad aragto in uu intriya ayuu ku siinayaa muhiimadda waxay tahay mar waliba uu suuqu baxo adiga markaas in aad ka daba waalato maaha ee intri ayuu ku siinaya sida halkan aan ka arkayno waxaan haysanaa running journalka waan ognahay lugtiisa inay ascending ahaan ku dhamaystirto kadibna in uu soo daato marka qaab noocan oo kaleeta confirmationkeena waxaan haysanaynaa in double topkeena kan markaas oo kale waa waxa aan ka ganacsano lacagtaana si live ayaan u falanqaynay xilligii zoomka aan ku jirnay markaan oo kale waxaan ku sugaynana oo aan nidhi markii halkaas lacagta maraysay in double topkeena ay soo taabato si ay u noqoto pilot structure pilot trade laakiin halkan haddii uu qiimuhu joogo in uu yahay not pilot trade in uu yahay ayaan ognahay oo ah qiimo marka in aan ku ganacsano aanan nagu habboonayn waxaan rajaynayaa in aad fahantay marka suuqa uu yahay not pilot trade laakiin uu yahay pilot structure buttonku pilot uu noqon karaa waa sax pilot button uu noqon karaa laakiin ma aha markaa qiimaha in aad adigu ka ganacsato ee waa in aad ku sugto in uu isku dhammaystiro trade lane-kaaga ama double topkaaga inuu isku dhammaystiro ama in aad hesho confirmation saxan in aad hesho waxaan arkaynaa inuu soo dhacay kadibna uu laabtay haddii aad ku jirtay oo aad u haysatay long term lacagtan inay sii daadan doonto waxaad arkaysaa isla markiiba in meeshii aad ka gashay suuqii uu ku laabtay waxaan isla tegaynaa tusaale kale iyo marka uu suuqu yahay pilot structure markuu yahay haddana pilot trade oo ah markan in aad isku hayso kana ganacsato aad u baahan tahay balse intaanan taa ku hormarin waxaan tegaynaa qaabkan oo kale marka uu suuqu aad ka sugayso in uu soo dhammaystiro structure uu soo dhammaystiro laakiin isagoon soo dhammaystirin uu suuqii soo daato markan waa mar uu shaqeeyay oo aad arkayso in waxay uu soo daatay kadibna retrace uu sameeyey balse waxaa jirta mar uusanba adigu ku qaldaya balse uusan soo daadaninin tusaalahaas ayaan tegaynaa waxaan isla tegaynaa euro USD euro USD halkan waxaan haysanaa large double top kan aan haysano wuxuu noqonayaa valid structure valid trade oo ah halkan qiimuhu marka uu tago in aan isha ku hayno marka in aan soo seel garayno balse muhiimadda waxay tahay halkan asagoo joogo suuqu muxuu noqonayaa inta uusan gaarin double topkaaga intuusan gaarin suuqa wuxuu noqonayaa not valid trade waa valid structure laakiin ma aha qiimo markaa in aad ka ganacsato adigo kugu habboon oo ah in si simply ah wax yar in uu soo daato kugu laabto kadibna structure noocan oo kaleeta ah kugu dhammaystiro ee uu noqdo valid structure valid trade kadibna uu soo daato sidaa waa midda ama qaabka ay u trade gareeyaan traderada guulaystay ee lacagta ka sameeya suuqan degdeg in aad ku gasho ee aad kala fahmi weyso meesha aad lacagta ka qaadanayso iyo meesha kugu habboon ee ah in aad suuqa ku sugto ayaa muhiim ah sidaas darteed for hourka ayaan tegaynaa si aan u fiirino meeshan iyo xaaladeeda qaabka uu kugu qaldi karo suuqa halkan waxaan arkaynaa in aan haysano retrace in uu halkan flag sameeyey kadibna dadka qaar halkan aanan ku baraarugsanayn waxa uu yahay valid trade-ka ama valid structure-ka in meeshan oo kale not valid trade-kan in ay qaataan sida aad ku soo arkaysay USD ZAR kadibna in qiimihii uu kugu laabto kugu dhammaystiro structure ama qaab kale oo markaas uu valid trade ku noqon karo uu kugu sameeyo haddii aan tagno one hourka waxaan sii arkaynaa si wanaagsan ayaa waxaan u sii arkaynaa waxa halkan ka dhacay
mar waliba oo aan falanqeynayno suuqa waxaan ku falanqeynaa retrace candle-ka sug balse meeshan ma aha meel retrace candle aad ku sugayso sababtoo ah mana aha structure isdhammaystiran ma aha meeshan structure isdhammaystiran waa meel uu ku sugan yahay suuqu haddii aan kuu zoom gareeyo muhiimaddu waxay tahay meesha uu suuqu ku sugan yahay in aad aragto ayaa muhiim ah meeshan hadeertan haddii aan rail line ku taagno oo kale waa areadan meesha uu suuqu ku sugan yahay bal meesha marka ma aha meel aad retrace candle-ka ku sugayso ama haddii aad hesho impulsive correction ah in aad sii qaadanayso taa waxay ka dhigan tahay in aad weli fahmin waxaad valid trade-ka ah oo aad ku trade garayn valid structure-ka ah oo aad ku trade garaynayso in aadan fahmin valid trade-kan kan wuxuu noqonayaa not valid trade ma aha qiime in aad ka ganacsato marka u baahan not valid trade waa structure valid structure laakiin ma aha valid trade ma aha taa waxay noqonaysaa double topkeena markii aan tagno si kastoo loo tagaba in aan markaa haysano valid structure valid trade oo ah meel aan ku aaminayno ishana ku hayno in aan valid trade-kaas qaadano oo aan markaa lacagtii haweysano in aan seel garayno valid trade-ka isagu wuu shaqeeyaa balse ma aha capitalkaaga adigu marka aad ganacsanayso waa in aad isweydiiso imisa trade ayaan anigu ka ganacsadaa oo valid trade ah ama valid structure ah imisa trade ayaan ka ganacsadaa oo ah high probability taa waxay ka dhigan tahay in aad miisaaman tahay markaa oo aad celcelis ahaan 10kii trade oo aad furatayba 8 ka mid ah hadday yihiin 8 ka mid ah hadday yihiin high probability 2 ama 3 ka mid ahna ay yihiin valid trade taa waa wax caadiya oo aad markaa capitalkaaga ku dhisi karto laakiin haddii ay noqdaan in 60% ama 6 trade in aad valid trade ku ka ganacsato 4 ama 5 ka mid ahna in aad ka ganacsato high probability trade taa waxay ka dhigan tahay minuskaaga in uu saa'idayo si waalanna aad u dareemi doonto in uu khasaare kugu socdo sidaas darteed waxaad u baahan tahay in aad iska dhisto valid trade-ka aad qaadanayso in aad iska dhisto oo aad ka gudubto una gudubto in aad qaadato high probability trade-ka taa waa dardaaran yar oo aan ku siinayo muhiimna uu ku yahay adiguna aad arki karto lacagtan hadda euro USD sababta ay u laabatay qaladkeeda oo kale in aad leedahay oo aadanba fahansanayn waxa uu yahay not valid trade-ka waa valid structure laakiin ma aha not valid trade ma aha qiimo in aad ka ganacsato marka ay tahay oo ay habboon tahay sababtoo ah meeshan ayaa wuxuu noqonayaa valid structure oo wuxuu noqonayaa valid trade for example waxaan tusaale cad oo kale kugu siinayaa valid trade valid structure-ka isaga naftigiisa marka aad ka ganacsanayso wuxuu u baahan yahay in aad hesho confirmation area ma aha high probability waan ku tusi doonaa lacagtu marka ay tahay high probability halkan waxaan haysanaa oo aan ka rajaynaynay in uu qiimuhu hoos u dhici doono ilaa iyo uu ka gaaro double bottomkaas maadaama halkan aan haysano corrective aan haysano oo 80% uu corrective yahay impulsive kan halkan aan haysanana uu yahay balse muhiimaddu waxay tahay meeshan ma ahan high probability area halkan oo kale in aad qaadato marka trade-kaaga oo confirmation haddii aad ka hesho mar waliba meeshan annagu waxaan ku sugnaa confirmation ee risk entry-ga kama galno dhigaal academy haddaan nahay meeshan risk entry-gana kama galno valid trade-kana mar waliba risk entry kama qaadano ilaa in uu noo sameeyo confirmation cad oo ah in corrective lagu taga ascending ahaan in structure-kii uu jabiyey kadibna uu soo dhammaystiray retouch-keena in aan helno candlestick noo xaqiijinayo suuqa in uu reversal yahay in aan helno gebi ahaanba retrace kadibna falaagaas ayaan qaadanaa for example haddii aan halkan ku siiyo kan wixii halkan ka dhacay oo kale meeshan wixii ka dhacay oo kale haddii qaabkan oo kale aad ku hesho waa valid trade waa valid structure valid trade oo ah qiimo markaa in qiimo saxan oo isku dhammaystiray double top-kaaga ahna in markaas aad ka ganacsato oo aad isha ku hayso kan marka haddii aad qaadato 10 trade oo ka mid ah trade-dadaada
ama 20 trade oo kamid ah trade-dada haddii 10 trade oo kamid ah trade-yada aad ka ganacsanayso aad bishaas furtay uu soo galo 4 kamid ah ama 2 kamid ah ama 3 kamid ah qaab noocan oo kaleeta waxaad haysataa jaanisyo badan oo ah qiimo haddii uu laabto dabcan in aad break even isticmaali karto waxa uu yahay break evenna waan ka hadli doonaa in aad isticmaasho khasaarahaada in aad miiska ka qaado oo kale oo uusan khasaare kusoo gaarsiinin iyo in adigu aysan kugu badanin pilot trade-ka aad qaadanayso mar waliba oo ah in aad u gudubto heerkii consistency-ga oo ah in aad qaadato high probability area trade-yada ah marka meeshan oo kale waa pilot trade pilot structure laakiin waxaan arkaynaa in uu si awood la u jabiyey suuqa kadibna aan weynay retracekeena annagu markaa waan ka joognaa suuqa oo ma galno mana raacdayno oo waxaan ognahay in uu noo samayn doono confirmation saxan oo markaa aan ku soo seel garayno marka sidaas darteed halkaas ayaan waxaan uga gudbayaa wixii aan ugu magac darnay qiimo markaa qiimo saxan laakiin aanadan ahayn in aad ka ganacsato oo ah in aad markaa ka joogto waa valid structure not valid trade taa oo tusinaysa marka haddii minuskaagu uu kugu bato ama khasaaradaada uu kugu bato dib u raac lacagihii aad qaadatay meesha aad ka qaadatay oo ay joogeen eriyada oo middleka ah ogow markaas waxa aad qaadatay waa valid patternku waa sax valid wuu noqon karaa laakiin haddii uu valid uusan ahayn trade taa waxay ka dhigan tahay in aad ka joogto suuqa oo aadan u baahnayn inaad ku degdegto oo aad ka ganacsato taa waxaan uga gudbaynaa valid structure not valid trade haddana waxaan u gudbaynaa qiimaha saxda ah iyo marka uu saxan yahay in aad ka ganacsato waxaan u gudbaynaa valid structure valid trade waxaan tegaynaa USD Mexican USD Mexican waxaan tegaynaa daily waxaan fiirinaynaa meeshan aan ku sugannahay oo ah haddii aan weekliga tagno si aan si zoom garaysan pricekii ugu wada aragno waxaan arkaynaa in aan ku soconno uptrainkaas aan ku soconno meeshan in ay noo tahay section 1 halkan inay noo tahay section 2 meeshan inaan haysano section 1 ama haddii aan 1 2 3 qaab noocan oo kaleeta markii aan halkan ka jarno haddii aan halkan ka jarno oo kala qiimaha haddii aan halkan ka jarno waxa aan raadinayna maxay tahay waa maxay patternkan sidee ayaan forecastingkeena u saaraynaa qaabkee ayaan ku ogaanaynaa in uu yahay valid structure valid trade markaan soo saarno kor iyo hoos patternkan si cajiib ah ayaad u arkaysaa in uu yahay wedge pattern in uu yahay ayaad arkaysaa ama violin wedge in uu yahay ayaad arkaysaa sidaas darteed waxa aan hadda raadinayno waxay tahay maadaama aan haysano correctivekan ama guud ahaanba 80% corrective maadaama aan haysano waa wax macquul ah in uu dhaco hoos oo kan ma aha probability ee waa valid taa in aad micnaha maskaxda ku hayso ayaa muhiim ah oo mar waliba waa uu jebin karaa balse kan wuxuu ka wanaagsan yahay kii ahaa structure-ka asagoon si soo dhamaystirin in aad ku degdegto kadibna aad dhexda ka gasho kan wuu shaqeeyaa laakiin ma aha asaga naftigiisa in ay trade-yadaada ku bataan ee waa in aad consistency noqoto oo marka aad qaadanayso uu noqdo 10kii trade oo aad qaadatay 3 ka mid ah ama 2 ka mid ah in uu noqdo ayaa muhiim ah isagoo shaqaynayo waliba isagoo shaqaynayo in aad qaadato 3 trade iyo 2 trade oo kamid ah in uu noqdo ayaa muhiim sidee marka confirmation ku sugaynaa xaaladeenu sidee noqonaysaa ma waxaan dhahnaa hadeertaan riskiga intriga iga geli ee kadibna wuxuu aadayaa buy ii raacimay waxaan sugaynaa confirmation dheeri ah ayaan sugaynaa confirmation dheeri ah si aan u sugno una xaqiijino waxaan tegaynaa for hourka si aan iskula fiirino una aragno waxaan arkaynaa meeshan dhan in ay ahayd corrective in ay ahayd oo qaab corrective ah in uu suuqii kusoo dhaqmay ayaan arkaynaa sidaas darteed
forecasting keena anagu weli waxaan u nahay patient waan fiirinayna hadda waxaan haysanaa qaab noocan oo kale ah markaan entry-ga raadinayno aad ayuu muhiim inuu yahay in aan 1 hour haddii aan sii tagno bal si aan trade-kii u qaadano oo aan meesha ku habboon markaa aan ka qaadan karo markayna 1 2 3 in aan soo dhamaystirnay still waa patient ayaan nahay oo waxa aan sugayno maxay tahay maadaama button-ku uu yahay valid weli waa in aan helno confirmation data oo aanan suuqii aanan ku ordin waxa aan raadinayna maxay tahay inaan helno impulsive inaan helno correction kadibna in aan qaadano correctionkaas inaan entry-geena ka qaadano ama in aan helno in price-kii uu dhaco kadibna qaab noocaas oo kaleeta aan confirmation-keena aan u sugano waa kan isla markii price-ku uu cararay balse halkan waxaan ka arkaynaa marka aad aqoon u leedahay waxa aad sameynaysid in khasaaradaada dabcan in ay yaraanayso waxaad sugtay impulsive-ka kadibna waxaad qaadatay corrective-ka ayaad qaadatay oo uu kuu confirm gareeyay in uu yahay haddii aan sawirka guud tagno valid trade valid structure valid trade in uu yahay ayaad markaas arkaysaa oo qiimihii markaa entry-gii saxnaa in aad heshay dabcan impulsive-kaas kuwada markii uu dhacana break even-kaaga ayaad isticmaali kartaa sidaas ayaadna ku qabanaysaa impulsive-kaas oo mar walibana si taxadaran in aad u qaadato valid structure valid trade-ka asagoo ah waliba si taxadaran inaad u qaadato ayaa aad u muhiim ah waxaan taa mar labaad waxaan tegaynaa lacag kale oo aan ku fiirinayno valid structure-ka valid trade-ka waa qiimo meel dhexe ku sugan oo markaa si taxadaran inaad u qaadato loo baahan yahay waxaan tegaynaa USD CAD halkan oo kale waxaan arkaynaa in ay tahay double top markaana meel lagu aamini karo suuq inuu yahay balse taa uma socono waa wax adigu haddii aad ku practice garayso in yar aad fahmi karto laakiin meelaha khasaarada ay ka imaanayso ah inaad ka taxadarto ayaa aad iyo aad u muhiim ah halkan ayaan qiimaha ka jaraynaa waxaana tagaynaa halkan ayaan tagaynaa meeshan waxaan arkaynaa in uu gebi ahaanba corrective yahay qiimuhu in uu ku socdo qaab corrective ah waxaan arkaynaa in uu yahay valid laakiin jihada uu u jihaysan doono halkee ayay noqon doontaa waa midda aan ku hayno isha oo aan forecasting-keena ku samaynayn taa ayaa muhiim ah qaabkaad u qaadan lahayd trade-kan in aad markaas si taxadaran u ogtahay oo aad isha ku hayso darteed for example halkan haddii uu ku saaran yahay trade line oo qaab noocan oo kale sorry okay qaab noocan oo kale ah haddii uu trade line-kaaga uu saaran yahay sida ama noocan oo kale haddii uu trade line-kaagu yahay waa wedge waa wax ahdiya waa pattern aad ku samayn karto forecasting-kaaga waa qaab noocan oo kaleeta inuu kugu baxo kadibna in aad sugto ilaa iyo double top-kaaga balse double top-kaagaas in la tago qiimuhu waa wax adiga aad markaas ka rajaynayso inuu dhici doono oo aad ku hayso maxay indhaha in aad ku hayso balse mar waliba waa in aad fiiriso higher high-gaagii ama higher low-gaagii meeshii ugu horreysay ama meeshii ugu sokaysay ee qiimuhu uu sare u tago halkee ayay ahayd intaadan meesha ugu sarreysa aadan fiirinin waxaad u baahan tahay inaad fiiriso marka koowaad meeshii ugu sokaysay ee qiimuhu uu tagay halkee ahayd waxaan haysanaa 1 2 3 ama 1 2 3 meeshan waa meel sare ee meeshii ugu sokaysay ee sare ee qiimuhu uu tagay meeshan waa meeshii ku xigtay meeshanna waa meeshii saddexaad intaad ignore garayso kadibna in aad halkan ku boodo taa waxay u baahan tahay in aad fariisato kadibna fikirto still waxaad tahay experience trader laakiin
halkaa in aad fiiriso waxaa ka horeyso meelaha bal ugu sokeeyo in aad fiiriso ee qiimo tago haddii aad halkan raylinkaaga aad ku taagto oo ah meeshii ugu sokeysay ee qiimuhu uu tagay waxaad u fiirinaysana in ay tahay meeshan in ay tahay meel suuqii laga soo reversal garay karo oo aysan kugu dhicin ilaa ay halkan adigoo qiimihii la socday kadibna in uu kugu soo laabto meesha targetkaaga uu ahaa in aad keliya fiiriso 800 oo beeb waxaa ka wanaagsan in aad ku manage garayso aad fiiriso meeshii uu qiimuhu markaa ugu sarreeyay ee tagay ee ilaa 400 kaas oo beeb ah in aad forecastingkaaga ku samayso intaas markaad baatankaaga sawirato oo aad wax waliba qaab noocaas oo kaleeta aad u sawirto waxaad fiirinaysaa oo aad isdul taagaysaa meeshan qiimaha ugu dambeeyay ee hadda uu ku sugan yahay waxaan arkaynaa in uu ku sugan yahay corrective phase kaas kadib waxa imaan doona waxaan ognahay in uu yahay impulsive phase balse baatankan aan saarno isha oo aan si wanaagsan aan baatankan u falanqayno oo aan u dhuuxno waxa uu yahay haddii aan halkan ka soo qaadno oo kale waxaan arkaynaa in uu yahay descending triangle kaas waxaan ognahay in uu yahay markaa continuation pattern in uu yahay ayaan arkaynaa continuation pattern-keenaas marka waxa aan forecasting-keena ku samaynayno sidoo kale halkan in aan soo qaadano trade lane-keena oo aan halkan leenahay waa section 1 section 2 haddii uu soo daato in aan halkan marka aan ka baygarayno qiimaha haddii uu baxo uu halkan impulsive ka baxo kadibna in aan halkan kale aan ka qaadano haddii uu halkan yimaadana in aan sidoo kale weli aan sugno halkan risk entry-ga kama qaadanayno why aanan halkan risk entry-ga u qaadanayn waa sax risk entry-ga ani ahaanteyda waan ka qaataa balse cashirkan hadda waxaan kugu siinaya adiga waxay tahay bal in aad fariisato marka koowaad oo ah violent trade-kii in aadan ku degdegin oo still in uu yahay violent uu qaab noocan oo kale uu u socon doono waxa aan kugula talinaya marka waxay tahay mar waliba markaad joogtid violent trade ama violent structure-ka oo violent trade-ka markaad joogto haddii uu ahaan lahaa violent trade marka in aad sugto impulsive-ka koowaad kadibna aad qaadato correction-kaas in badan oo aan falanqaynayno waxaad arki doontaa ama lacag aan falanqaynayno waxaad arki doontaa anigoo kule sug corrective-ka impulsive-kiisa si aad u xaqiijiso in qiimuhu markaas jihadii bayda ahayd ama haddii kale jihadii sell-ka ahayd in uu aaday taa oo ka dhigan in gebi ahaanba capitalkaaga adigu aad haysato aadan luminaynin faa'iidana markaas suuqii aad ka samaynayso waxaan halkan hadda ku haysanaa descending triangle-keenna forecasting-kii aan ku samaynay in uu noo waafaqay in uu ahaa continuation impulsive-kiisa in aan helnay haddana in aan haysano sidan oo kale in aan haysano candle buyer candle-kan buy-ga ah oo aan hadda haysano sidee ayaan marka ku aamini karnaa oo aan u gelaynaa halkan risk entry intaan ka qaadana ma galnaa ma geli karno sababtoo ah weli waxaa suuragal ah in qaab noocan oo kaleeta ah oo kugu sameeyo kadibna uu sidaanna ku aamini mayno maxaan aaminaynaa waxaan fiirinaynaa in aan gebi ahaanba jebinno trade lane-keena ama aan helno corrective oo aan noo xaqiijinayo in aan markaas qiimihii si wanaagsan markaas aan uga faa'iidaysano still waa soconnaa oo waxaan arkaynaa in qiimihii uu socdo corrective ku socdo corrective okay maxaan marka fiirinaynaa waxa qaabka oo wax isku bedeli karaan at the moment okay meeshan marka qiimaha uu ka dhacay kastoo qiimuhu cararay oo aan duubsiinay haddana waxa forecasting-kaaga dhowr saacadood waa waxa uu kugu qaadanaya adiga 1 maadaama hal saac aan joogno 1 2 3 ilaa iyo intaan qiimo aad ku haysay forecasting-kaaga marka uu jebiyo waa mid aad geli karto marka haddii aan halkan oo kale ka galno oo aan dhahno markuu jebiyo qiimo annagana waan gelaynaa oo halkaas kadibna in aan si aad iyo aad ah balse 15 minute-ka haddii aan tago waxaan halkan ka tusayaa waxa aan sugaynay mar waliba inay ahayd
in ay ahayd impulsive correction impulsive oo markaa mar waliba waxay ahayd inaan sugno qiimaha in aan sugno impulsivekiisa kadibna in aan qaadano correctionkiisa oo halka si saxan in uu correctionkii noo siiyey ayaan arkaynaa marka qaab noocaas oo kaleeta ah waa qaabka aad u qaadanayso trade-ka ee ma aha in aad ku degdegto oo aad si waxaan u malaynayaa marka in aan ku fahansiiyey violet structure violet trade-ka oo isaguna markaa aad ka bogatay waxa uu yahay oo mar kalena aan rajaynaya inaad ku khasaarin oo aad forecastingkaaga ku samay doonto intaa waxaan ugu gudbaynaa qiimihii wixii aan halkaa waxaan kusoo gabagabeynaynaa cashirkii ahaa violet trade-ka violet structure ama violet structure not violet trade